sidee qofku markaa ku soo gabagabayn karaa daalkaas faraha badan ee uu dareemayo noloshiisana uu horumarin kara. Assalaamu calaykum saaxiibada ku xiran bogeenan Bukaandeeqclinic ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijyadeena caafimaadka. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa muxuu u dareemaa qofku daal fara badan markuu isku dayo howlihiisa inuu qabto si walba uu u nasto. waxa laga yaabaa qofka dareemaya calaamadahaasi inuu qabo waxyaabo la xiriira hurdo xumi, dhiig yari, xanuunada ku dhaca qanjirka lagu magacaabo thyroidka, fuuqbax iyo sidoo kale inuusan helin raashin isu dheelitiran. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa ilaa 5 qaab ama 5 qodob oo keena inta ugu badan daalka faraha badan iyo sidoo kale qaababkii lagu tacaali lahaa ama qofku isaga xalin lahaa. kusoo dhawaada mar kale iyo mowduuceena maanta. magacaygu waa Dr. Shariif Xidig. haddii aan ku bilaabo qodobka koobaad ee keeni kara daalka faraha badan wuxuu noqon doonaa hurdo xumi ama qofka oo aan helin hurdo ku filan. ugu horeyn qofka hurdadiisu aysan ku filayn waa inuu manage gareeyo ama uu isku dayo inuu helo hurdo ku filan si uu uga gaashaanto ama uu uga gudbo daalka faraha badan ee uu dareemayo si walba uu u nasto. calaamadaha hurdada wanaagsan ama quality-ga leh waxa kamid ah qofku marka uu sariirta tago inuu 30 daqiiqo gudaheed uu hurdo oo ay ka tagto isla markaana hurdadiisa uu dhex galo. qodobka labaad ee lagu garto hurdada wanaagsanna waa in qofku uu soo kicin habeenkii hal mar wax ka badan iyo sidoo kale in qofku marka uu hurdo oo ay hurdadu la tagto 20 daqiiqo ka hor oo soo baraarugin. waxyaabaha keena hurdo xumida waxa kamid ah in qofka uu seexdo leerka oo u daaran, telefishinka oo u shidan, qolka dhan oo wada iftiina ama sidoo kale asagoo isticmaalaya aaladaha sida mobilka oo kale ama ay dhiga ugu jiraan iyo sidoo kale in qofku marka uu seexan rabay uu isticmaalo kafeega iyo waxyaabo lamid ah. qodobkeena labaad ee aan uga hadli doono waxyaabaha sababa daalka faraha badan wuxuu noqon doonaa stresska. qofka isku buuqa ama walwalka qaba waa qof aan fadhin isla markaana dareemaya daal fara badan si walba uu u nasto. sidoo kale waa qofka markuu seexdo habeenkii waagu markuu u bariyo oo kale u muuqda qof xal oo dhan soo jeeday isla markaana daal fara badan uu ka muuqdo. qodobkeena saddexaad ee keena daalka faraha badan wuxuu noqon doonaa qofka oo aan helin raashin isu dheelitiran ama wax lagu magacaabo balanced diet ama balanced food. qofka aan isticmaalin raashin isu dheelitiran waa qof ay ka maqan yihiin waxyaabihii asaasiga ahaa ee jirka qaybihiisa kala duwan ay ku shaqeynayeen. qofka marka aan helin balanced food-ka ama raashinka isu dheelitiran aan qaadan waxa soo wajihi kara ama la soo gudboonaan kara dhiig yari, isu dheelitirnaan la'aan fitamiinada kaas oo keeni kara calaamado fara badan oo la xiriira xagga daalka. qodobkeena afraad ee aan uga hadli doono waxyaabaha sababa daalka faraha badan wuxuu noqon doonaa qofka qaba dehydration-ka ama fuuqbaxa. qofka marka dehydration-ka ama fuuqbaxa qaba waa qof aan haysan milankii jirka uu u baahnaa isla markaana biyihiisa jirka ay aad u yar yihiin. waxa ugu badan ee keeni karana waa qofka inuu matag leeyahay, shuban inuu leeyahay iyo sidoo kale inuusan isticmaalin biyihii uu jirka u baahnaa. calaamadaha la soo dirsi karana waxa kamid ah afqaleelka iyo daalka faraha badan isla markaana qofku ma awoodo howlihiisa si caadi ah inuu u qabsado. qodobkeena shanaad ee aan uga hadli doono waxyaabaha sababa daalka faraha badan wuxuu noqon doonaa qofka qaba wax lagu magacaabo medical conditions ama xaalado nolosha la soo dirsa isla markaana dhaqaatiirtu aysan ogaanin sida qofka qaba qanjirka thyroidka cilada ku yimaada sida qanjirku shaqadiisa inuu badiyo ama shaqadiisa in ay yaraato iyo sidoo kale qofku inuu qabo anemic oo yahay oo anemia oo qabo oo sidaas irontiisa jirka ay liidato isla markaana oxygenka qaybihi kala duwan ee jirka aysan si wanaagsan u gaarin. qofku marka uu dareemo daal fara badan iyo sidoo kale qofku inuu qabo xanuunada ay kamid yihiin sonkorta, wax lagu magacaabo sleep apnea ama qofka habeenkii markuu seexdo kale in neefta ku dhagto iyo sidoo kale inuu qabo cagaarshowga nooca lagu magacaabo C-ga ama hepatitis C-ga iyo xanuuno fara badan oo keeni kara qofku inuu dareemo daal fara badan iyadoo aan la ogaan. sidee qofku markaa ku soo gabagabayn karaa daalkaas faraha badan ee uu dareemayo noloshiisana uu horumarin karaa? ugu horeyn qofku waa inuu helo hurdo ku filan
isla markaana qofku weyn oo seexdo 7 saac wax ka badan habeenkii sidoo kale markuu seexanayo qolkiisa waa inuu iska damiyo leerka mugdina uu ka dhigo sidoo kale hadii uu isticmaalayo aalado sida telefoonka iyo TV-ga sidoo kale inuu iska damiyo hadii uu markuu jiifanayo uu isticmaalo dhaga uu wax ku dhageysanayna inuu iska siibo dhagaha si uu helo hurdo wanaagsan inta kadib qofku waa inuu helo raashin isu dheeli tiran balanced diet sida cuntada qolofta leh ee lagu magacaabo whole grain-ka iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan si uu uga hortago in dhiig yari la soo diristo anemia ama ay ku dhacdo weynta fitamiinka 12 vitamin B12 deficiency intaas kadib qofku hadii uu leeyahay isku buuq iyo stress inuu iska saaro isla markaana uu sameeyo jirdhis waxyaabo noloshiisa farxad gelinayana oo daawado sidoo kale qofku waa inuu isticmaalo maalintii cabitaan aad u badan ugu yaraan 2 litir iyo bar ilaa wax ka badan inuu maalintii isticmaalo si uu uga gaashaanto fuuqbaxa jirkiisa ku imaanaya keenaya qofka inuu daal fara badan la soo gudboonaado ugu dambeyn qofku hadii uu dareemayo calaamado la xiriira waxa lagu magacaabo medical conditions ama xanuuno uu dareemayo oo keeni kara daalka inuu la kulmo dhakhtarkiisa si baaris wanaagsan loo sameeyo isla markaana meesha looga saaro xanuunada keeni kara daalka faraha badan sida qanjirka thyroidka ciladaha ku yimaada sonkorta cagaarshowga dhiig yarida iyo sidoo kale xanuunada kale ee keeni kara hurdo xumida iyo sidoo kale daalka qofka la soo dirsa sida wax lagu magacaabo sleep apnea ama qof marka uu seexdo oo kale in asaga oo naqaska ama neefta ku dhagan tahay oo soo baraarugo waa mahadsantiin